haweeney 80 jir ah ayaa maalin kasta si taxadar leh isu qurxisa iyadoo ujeedadeedu tahay inay banaanka u baxdo si ay u soo jiidato dareenka wiilasha dadaya. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa hareereeyay nin burcad ah, laakiin haweeneydii waayeelka ahayd cabsi ma aysan muujin. Isla markiiba ayay dhunkatay ninkii oo yaaban ayaa ku qayliyey. Isla markiiba haweeneydii ayaa si waali u eg u qabatay ninkii, taasoo cabsi gelisay saaxiibkiis oo markiiba goobta ka cararay. Laakiin arrintu intaas kuma eka. Maalin kale waxaa gurigeeda yimid wiil qurux badan oo la oran jiray Bobkaas oo doonayay inuu qol ka kirayso. Haweeneydii waxay u diyaarisay quraac si jacayl ku dheehan yahay. Markii ay qaxwaha shubaysay si ula kac ah ayay qaadadii u leefleeftay, dabadeedna koobkii dib ugu celisay. Kadibna qaxwihii ayay Bob u geysay. Iyadoo daawanaysa Bob oo cabaya qaxwihii ay candhuufteedu ku jirtay, wejigeeda waxaa ka muuqday xishood iyo farxad. Waxaase ka sii yaab badnaa in iyadoo Bob cunaya ay si dhuumasho ah qolkiisa u gashay, iyadoo fasax la'aan furtay alaabtiisii gaarka ahayd. Waxay si ula kac ah u taabatay dhammaan alaabtiisa si ay urkeeda ugu reebto, waxayna hal mar isticmaashay wax kasta oo ay isticmaali karto. Ugu dambayn waxay soo qaadatay cadaygii Bob way ursatay, dabadeedna afkeeda ayay gelisay. Iyadoo ku fikiraysa wejiga Bob ayay si farxad leh u isticmaashay. Falkeedu wuxuu ahaa mid aad looga yaqiiqsado. Isla waqtigaas waxaa banaanka ka yeeray cod lama filaan ku saliya nabiga calayhi salaatu wasalaam. ayay cadaygii meeshiisii ugu celisay. Markii Bob qolkii ku soo laabtay wuxuu arkay oo keliya haweeneydii oo sariirtiisa u bedelaysa gogol cusub. Bob wax shaki ah kama uusan qaadin, xitaa si diiran ayuu ugu mahadceliyey. Markii uu Bob baxay, haweeneydii ayaa mar kale ursatay goyaashii uu isticmaalay, iyadoo wejigeeda ay ka muuqatay farxad. Markii ay ogaatay in Bob uu jecel yahay daawashada ciyaaraha kubadda lacag badan, ayay ku bixisay inay telefishan cusub ku rakibto qolka fadhiga. Waxayna ku riyoonaysay inay Bob guursato oo mustaqbalka carruur u dhalaan. Fiidkii markii Bob guriga yimid, albaabka ayay uga hortagtay sidii xaas gurigeeda kusoo dhaweynaysa ninkeeda. Laakiin Bob waxba kama uusan fahmin. Wuxuu u haystay oo keliya inay tahay haweeney martisoor badan oo naxariis badan. Maalin kale burcadii ayaa mar kale u timid inay dhibaateeyaan haweeneyda, waxaana dhacdadaas arkay Bob. Markii ay burcadii baxayeen ayuu Bob u yeeray isagoo uga digay inay mar dambe dhibin haweeneyda. Laakiin ninkii burcadda ahaa ma uusan joojin aflagaadada, xitaa wuxuu caayay hooyada Bob. Taas ayaa Bob ka caraysiisay, wuxuuna isla markiiba feeray ninkii. Markii ay aragtay Bob oo difaacaya, qalbigeedii wuxuu la kacay jacayl iyo farxad. Waxay Bob u aragtay geesigeedii riyada. Inkasta oo ay aad u faraxsanayd habeenkaas, waxay ku riyootay riyo cabsi leh. Waxay ahayd in ninkeedii geeriyooday uu muddo ka badan 50 sano si joogto ah u dhibaateyn jiray, taasoo ku reebtay dhaawac nafsiyeed oo aad u weyn. Waxay xorriyad heshay oo keliya nus bil ka hor markii ninkeedii uu si shid ah uga dhacay meel sare oo uu geeriyooday. Waxay dambaskiisii ku riday sanduuq yar oo ay ku qarisay armaajo si aysan murugo iyo cabsi u dareemin mar kasta oo ay aragto. Markii ay hurdada ka toostay, waxay go'aansatay inay mar dambe ka xorowdo xusuustaasi. Waxay sanduuqii dambaska ku riday bac qashin ah, dhulka ayay si xoog leh ugu garaacday ilaa uu jajabay. Kadibna waxay ku tuurtay qashinka banaanka yaala. Isla waqtigaas waxaa halkaas yimid Bob oo guriga ku soo laabanayay. Haweeneydii si degdeg ah ayay isu qarisay. Waxay aragtay Bob oo warqad yar ku tuuraya qashin. Markii uu Bob kor u baxay, iyaduna waxay ka soo saartay warqadii qashinka. Waxay u malaysay inay tahay wax gaar u ah Bob, laakiin waxay ahayd oo keliya risiidkii biilka baar uu bixiyey. Si kastaba ha ahaatee, waxay ula dhaqantay sidii hanti qaali ah, waxayna ku dhex keydisay buuggeeda xusuus qorka. Waxay sidoo kale warqad u qortay saaxiibteedii qalinka ahayd ee ay muddo dheer isugu diri jireen waraaqaha, iyadoo uga sheekaynaysa iyada iyo Bob iyo sida ay waqti badan u wada qaataan. Maalin kale ayay Bob ugu yeertay musqusha iyadoo qubaysanaysa, waxayna ka codsatay inuu ka caawiyo sugidda tuwaalka. Arrintaas ayaa Bob aad uga xishoodsiisay. Maalin kale markii Bob banaanka u baxayay, haweeneydii waxay xirnayd dhar gebi ahaanba aan ku habboonayn dadeeda, iyadoo rabtay inuu magaalada gaari ku geeyo. Bob aad ayuu ula yaabay labiskeeda, sidaas darteed marmarsiyo ayuu sameeyey si uu uga cudur daarto. Sababtu waxay ahayd inuusan rabin inay gabdhaha kale arkaan isaga oo la socda haweeneyda weyn. Haweeneyduna way fahantay, mana ku adkaysan. Laakiin waxaa khasaaray labadii saacadood iyo badkii ay ku bixisay diyaarinta labiskaas. Markii dambe waxay warqad u qortay saaxiibteedii qalinka ahayd, iyadoo been ugu sheegtay in Bob magaalada u kaxeeyey, isla markaana ay maalin aad u jacayl badan wada qaateen. Cashadii fiidkii waxay xiratay dhar kale, balse isna wuxuu ahaa mid aad u buunbuunsan oo aan ku habboonayn, taasoo Bob ka dhigtay inuu xitaa madaxa kor u qaadi waayo isagoo ka xishoonaya. Isla markaas ayay taleefan ka heshay saaxiibteedii qalinka ahayd. Saaxiibteedu waxay u sheegtay inay safar kedis ah ku jirto, isla markaana ay maalmahan halkaas soo mari doonto. Waxay codsatay inay dhowr maalmood gurigeeda degto. Labadii saaxiib ee muddo dheer waraaqaha isku diri jiray ayaa ugu dambayn fursad u helay inay fool ka fool isu arkaan.